aad baa umahadsantahay tababarkan wuxuu furmay bishii January ka hor intuusan coronavirus ku bilaaban marka waxaan sameynay baaris aan sameynay ayaan waxaan ku ogaanay dhammaan gobolada dalka intooda badan oo aan ka ahayn garoonka Hargeysa, Boosaaso iyo Garowe iyo garoonka Muqdisho inta kale badana inaanay joogin shaqaale qualified ah oo bixin kara adeega hagista diyaaradaha ama loo yaqaano air traffic services marka waxaan go'aan ku gaarnay si loo dhimo caqabada gaaraysa diyaaradaha u duula gobolada maadaama ay diyaarado aad u fara badan ay u duulaan gobolada Soomaaliduna badana ay hadda isku haleeyaan dhinaca cirka safarka ay isku haleeyaan waxaan go'aansanay in si arrinta loo yareeyo inaanay wax dhib ku imaan in shaqaale xirfadlayaal ah oo adeega bixin kara loo tababaro kadibna maadaama aan khubaradii haysano oo khubaro Soomaaliyeed oo 50 sano 40 sano aviation ku soo jirtay macallimiinta ahaan jirtay iskuulkii hore ee aviationka ee dawladda dhexe xilligii 90-meeyadii ka hor ay noo joogaan in aan anagu tababarno kadibna baahida aan daboolno qalabna waan heli karnay marka sidaas ayuu tababarku ku bilowday shaqaalihii tababarkii way dhamaysteen oo laba qaybood ah qayb classka ay ku sameynayeen iyo qayb oo practical oo ay ku sameynayeen live traffic towerka Muqdisho ay ku sameynayeen kadib markii aan ku qanacnay tababarkooda iyo heerka cilmigooda markii aan ku qaanay waxaan bilownay in aan u kala dirno goboladii aan ka soo ururnay Kismaayo kaleeto way baxeen teamkii way ku laabteen ayagoo tababarkoodii iyo qalabkoodii wata meesha la yiraahdo Garowe qaara ku laabtay ayagana shalayto waxaan tagnay Beledweyne oo wafti heer wasiire aan ku tagnay oo anigu aan qayb ka ahaa shaqaalihiina waan ku wareejinay qalabkiina waan kusoo wareejinay Hirshabeelle iyo maamulka gobolka Hiiraan waxaan u soconaa Dhuusamareeb oo halka wasiirka gaadiidka galmudug iyo madaxda kale aan maaragtay ku kulmi doono halkaasna aan kula wareejin doono qalabka iyo shaqaalaha tababaran iyo garoomada oo loo sameynayo xaydaabkii ka ilaalinayay in xayawaan soo galo iyo wax aankaasa iyo garoonkii aan lahayn tower oo kaleeto sida Dhuusamareeb oo kaleeto qorshaha ayuu noogu jiraa insha Allah taala Beledweyne oo kale qorshaha ayuu noogu jiraa marka dhaqdhaqaaq fara badan oo ku wajahan gobolada dalka oo dhan garoon kasta meeshii 5 diyaaradood ay deganayso maalintii in aan gaarsiino adeega hagista diyaaradaha tanna waxay ka timid dardaarankii madaxweynaha jamhuuriyadda isagoo la dardaarmay oo yiri waa in adeega la gaarsiiyo dhammaan gobolada dalka si loo hubiyo in diyaaraduhu si amniya gobolada ku degtaan ugana soo kacaan imise shaqaale ah ayaa tababarteen waxaan tababarku markuu bilaabanayay wuxuu ku bilowday 34 shaqaale ah marka waxaa qalin jabisay because standardka aan u baahnayn oo aad u sareeyay waxaa qalin jabisay nasiib wanaag 22 shaqaale ah oo si successful ama guul ah ku dhamaystay dhammaan qaybihii tababarka kadib interview iyo wax walba oo ay mareen si guul ah ku dhamaystay 22kii ayaan gobolada u qaybinaynay insha Allah taala markii aan wajigan aan si guul ah ku dhamaynana waxaan bilaabi doonaa qayb wajigii labaad oo qayb kale ayaan tababari doonaa hadii la yiraahdo waxaad ka hadashay shilal ka dhacay garoomada qaarkood bilihiina soo dhaafay Beledweyne Qansax Dheere iyo meel kale marka bal waxaad ka hadashaa tallaabooyinka aad qaadeen dhinaca amniga hawada waxaan sameynay horta garoomada dalka oo dhan waxaan sameynay survey ayaan sameynay garoomada dalka oo dhan assessment ayaan kusoo sameynay waxaa inoo caddaatay kaalinta ugu weyn in ay tahay adeegan oo hagista diyaaradaha oo aanan ka degin garoomada dalka qaarkood sida shilkii Beledweyne oo kale markaan soo qaato runwayga UN-ka ayaa dayactir ka sameynayay carro ayaa ku degsanayd marka pilotku markii dhinac ayuu runwaygu ka banaanaa runwaygu normally 2 dhinac ayuu leeyahay dhinac magaalada soo xiga iyo dhinac buuraha xiga marka dhinaca buuraha xiga ayaa waxaa ku degsanayd carro dayactir ayaana ka socotay boorar ayaana ku degsanaa runwayga marka qayb ahaan wuu xirnaa qayb ayaa banaanayd pilotkii markuu isiri dhinacii banaanaa ka soo dego ayaa waxaa ku dhacday strong wind ama dabayl aad u xoog badan
oo dabada uga dhacaysay taasoo sababi kartay inay diyaaraddu dhacdo marka pilotkii wuu dega waayey runwayga ayuu dul maray wuu soo kala wareegay dhinacii buuraha ayuu kasoo degtay isagoon qadarin in dhinaca dhisma ka socdo marka dhismihii ayuu ku dul dhacay taasaana sababtay shilka marka bardaaloo kale asna wax case dhinacaas u dhow ayuu ahaa oo air traffic services ama adeega hagista diyaaradaha hadduu ka jiri lahaa meesha macnaha shilalkaas oo dhan waa laga baaqsan lahaa kan sax dheeroo kale waa la mid u ahaa oo case noocaas ku dhow ahaa dhammaantood salka ku haya adeegaasoo aanan gaarsiisnayn meesha marka dardaarankii dawladda dhexe ayaa wuxuu ahaa in dhammaan garoomada dalka la gaarsiiyo adeegan marka taas ayay ku timid marka kan beledweyn oo kale wararka qaar baa sheegayay xayawaan inuu ku lug lahaa dameer oo kale marka arrintaa ma ka salgaadheen waxaan ka salgaarnay waxaan ku in karaa wax xayawaana oo ku lug lahaa ma jirin procedureka beledweyn oo kale markaan kusoo qabto dhowr jeeraan hay-adda iyo wasaaradda oo maarata wasiirkuna hogaaminaya aan ku laabanay airbortka horta wuxuu leeyahay xaydaab ama fence aad u heer sarreeya oo bir iyo silig ka samaysan numberka labaad constant oo wada shaqayn joogta ayaan waxaan leenahay hadda shaqaaleyna ayaan geynay laakiin ka hor amisom ayaa raadiyaha diyuuradaha laga hagayahayay marka si toos ayuu ugu xirnaa garoonka muqdisho markii uu ogaaday inay diyuurada usoo socotana wuxuu samayn jiray ciidanka oo ciidanka Djibouti ah ayaa waxay isku wareeji jireen runwayga dhinaca gudaha fensiga gudihiisa isku wareeji jireen diyuuraduna saasay kusoo degan jirtay diyuuradan u socotay beledweyn ee dhacday muhiimad gooni ayay lahayd supplyga waxay u waday ciidamada amisom Djibouti ayay ka timid marka iyagoo rajaynayay ogaa la hadlaya diyuuradda isku wareejiyay garoonkii ayay soo degatay marka jaaniska ah in xayawaan soo gala maba jirinba